بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال قدي دود meel kasta adduunka dacaladiisa aad ka joogtaan maanta waxaan deehaynaa xog muhiim ah xogtaas oo ah alfanaan maxamed saciid biike oo qabsan doona showgii qarniga bisha 30ka showgaas oo lagu qaban doona cariga Mareykanka qiimaha lagu soo galiyahana uu yahay 20 waa hagaag showgaas maxamed saciid biike oo ah showgii koowaad ee uu ku qabsan doono Ingiriiska maxamed saciid biike sidii uu uga qayb galay showgii ama xafladii ama munaasabadii lagu marti qaaday ee Somali Week kadib kamuu iman Ingiriiska wali waa uu jooga waxaana uu rabaa inuu ku qabsado show uu ugu talagalay taageerayaashiisa ku dhaqan ama jooga ama ku sugan cariga Ingiriiska maxamed saciid biike saad ka waraysan waa fanaan Soomaaliyeed waana fanaan kayga Soomaalida caanka ah magaciisa maamusna ku dhaxle showgaas oo soo shaaciyay maxamed saciid biike ayaynu eegi doonaa fanaaninta ka soo qayb gala inkastoo dhigiisa iskalaaji oo isagana ku sugan Ingiriiska uu qabsaday show marna uu qabsaday ama loo qabto lagu maamusay xaflad casho sharaf ah taageerayaal badan ay ka soo qayb galeen fanaanin badan ay ka soo qayb galeen talo maxamed saciid biike ma ka soo qayb gali doonaan fanaanintii ka soo qayb galay showgii iskalaaji mise kama soo qayb gali doonaan oo isaguna waxa uu wataa fanaanin khaas ah oo ka soo qayb gali doona fanaaninta miyaa la kala qaybsaday mise waa la wada leeyahay arrimahaas iyo warbixinahaas oo koobanna gadaal baan idiga soo sheegi doonaa showguna waynu ku arki doonaa sidoo u qabsoomo iyo sidoo u dhaco iyo halka wixii ka yimaada waana 30ka bisha iyo wacdaraha cusub ee maxamed saciid biike hadal waa laga waayay iyo guux iyo dhaqaaqtoona waxa la islaa talo Ingiriiska muu ka yimi dib u guriyo noqday oo Soomaaliland buu ku noqday laakiinse waxa la ogaaday inuu wali Ingiriiska ku sugan yahay oo uu doonayo inuu ku qabsado show runtii aan inaba caadi ahayn bal wayna arki doonaa showgaas sidii la rabay inuu ugu dhaco iyo inaan ugu dhicin taana inaga iyo idinku maqraatiyaal bad ka ahaan doontaan inkastoo maxamed saciid biike uu yahay fanaan cod macaan kayga Soomaalidana aad ay u wada taageeraan kulli fanaan kasta taageerayaal buu leeyahay kulli fanaan kasta halka uu ku sugan yahay dadka ku sugan ee joogay ma wada taageeraan kulli laakiin taageerayaashiisa halka ku sugan kulli dad badan oo taageerin way jiraan balse haddana bal taageerayaasha jooga inay badan yihiin iyo inay yar yihiin fanaan kasta wax lagu ogaada oo lagu qiimeeyaa taageerayaashiisa showyada uu qabanayo sida looga soo qayb galo bal hadda daawadayaal maxay idila tahay showgaasi sidoo noqon doona ma ku soo dhawaan doona showgii iskalaaji ma u dhigmi doona showgii iskalaaji ma ka qaalisanaan doona showgii iskalaaji bal maxay idila tahay aniga oon hadalkayga u dhigeen in labada fanaan isku garaacayo laakiin seen ognahay showgii uu qabsaday maxamed saciid biike oo ku qabsaday Hargeysa inay dad badan isku soo baxaan kulli ma yahay maxamed saciid biike fanaan meel kasta uu tago ku helaya taageerayaal mug iyo miisaan leh inkastoo ognahay inuu yahay fanaanka sanadadan ugu cadcad isaga iyo fanaanin kale oo halkan ku soo koobi kareen oo iyaguna runtii ah fanaanin magac iyo maamuus bale waa inoo kala dambe iyo ismaqal dambe iyo xogaas oo muhiim ah iyo fikirkaaga iyo aragtidaada oo nala soo wadaagto sidaad maxamed saciid biike aad ka filayso inuu showgaas ugu qabsoomi doono waa hadda daawada ku cusub tahay channelka waxaanu ka codsanaynaa inaad subscribe saarto kambalada kana aad furato waa inoo kala dambe